رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام دمان ولاله دنافكس أكاديمي soo dhawaada insha Allah waxaan halkan aan ku duubi doonaa kambani cusub kaasoo asxaab badan ay naga soo codsanayeen inaan overview ku sameyno. kambaniga waxa laga yaabaa dad inay hore u maqleen, dadna uu hadda ku cusub yahay, dadna uu hor leeyahay bay weli ayna arkin. kambaniga wuxuu ka mid yahay kambaniyada fundinga bixiyo, waxaa laga leeyahay hadda kan wadanka Canada. akoomo raqiis ayuu bixiyaa, kuwa kale uu ka raqiisan yahay. marka insha Allah faahfaahin macquul oo kooban aan ka bixin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. maanta akoonkii ugu horreeyay aan ka qaaday qof ayaan u qaaday asxaabta ka mid ah, ani weli maan akoon ka qaadanin kambanigan. marka maanta aan wixiisa dhan xogtiisa dhan aan si fiican u arkay, waxyaabo badan ay ku kala duwan yihiin ayaa jiro. marka wixii maanta ani aan maray si idinka hadhowto haddaa rabtaan inaa idinkana akoomo ka qaadataan idin ku adkaanin, ama meel marjic loo laabto oo wixii khaldamo qofku iskaga saxo video uu noqdo tusaale inaan u sameyno insha Allah. linkigiisana waa diyaar oo aad haddaa iska diiwaan gelistaan ka caawin doono wixii ka kugu adkaada ama ka halaaba. kambaniga waa kana waxaa la dhahaa Traders Central. wuxuu bixiyaa akoomo yar, akoomadiisa waxay ka bilowdaan ilaa 5,000 ilaa iyo kor ayay u soconayaan. feeskiisa ugu horreeya markaa soo geshid kambaniga waa sidan. feeskiisa markuu saas yahay, markii aad maxaan ku dhahaye aad linkigan isticmaashid, meeshii uu ku keenayo ayaan rabaa inaan ku tuso. productyada kambaniga uu bixiyo horta waa kuwana, intaasoo dhan ayuu bixiyaa, laakiin annaga waxaa noo muhiim ah qaybta fundinga. 24 hours funding waaye. haddii aan objectiveskiisa aan fiirino akoomada u tegi doonaa. objectiveska waxaa waaye akoomada haddaan isla fiirino, waxaa macnaha annaga muhiimadeena waxaa waaye haddii aan Soomaali nahay, instant funding waxaas waa very expensive waa. instant funding waxaa la dhahaa in macnaha akoon hore aad ka qaadaysid adoo wax challenge aan gelin. marka haddii xataa uu raqiis yahay, wuxuu ku xun yahay leverage-ka. leverage-ka ayaa wuxuu kugu xadidayaa inaad macnaha aad lot fiican trade-ka ku gelin. marka faa'iido badan ma sameyn kartid. 6% share waaye. maxaan ku dhahayaa overnight iyo over the weekend labadaba trade-yada waa hayn kartaa. laakiin anaga muhiimadeena waxaa waaye qaybta challenges-ka inta badan xooga saarnaa. marka qaybta challenge-ga aad u faahfaahin doonaa. qaybta challenge-ga aan isla tagno. qaybta challenge-gooda waxaa la dhahaa OTF challenge. OTF instant-gan waxaa waaye qaybtii toos oo adu challenge aan marin. qayb kale waxaa jirta ayadana oo 30 beriba ka dhaceyso, oo 30 beri walbo laga rabo maxaan ku dhahaye inaan lacag fiya bixisid. marka anaga waxa hadda xoog aan saareen waxaa waaye qaybta challenge-ga oo anaga naanfaceyso. marka challenge-yadu waa leeyahay sida halkan ka wada aragtaan. wuxuu leeyahay ilaa iyo 200,000 waa almost 6 akoon waaye. akoonka ugu yar ee aad qaadan kartid waxaa waaye 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 100,000, 200,000. marka akoonkii 5,000 ah tusaale ahaan, akoonkooda 5,000 ah, stage 1 waxaa laga rabaa. waa stage 1 waxay u yaqaanaan ayaga challenge-ga ama phase 1.
meeshii challenge FTMO laga dhihi jiray phase 1 laga dhihi jiray MyForex Fund ayaga waxay dhahaan stage 1 leverage fiican ay leeyihiin halka kambaniyada kale ay ka yihiin 1 to 100 ayaga 1 to 200 waay waqtiga lagu talagalay challenge-gina oo gudubtid waa 30 beri waxaa laga rabaa profit target 8% 8%-ga waxay ka siman yihiin MyForex Fund halka FTMO ay ka ahayd 10%. Drawdown limit-kan waa maxi drawdown limit waa inta challenge-ga oo ku jirtid inta lagu ogol yahay waa marka drawdown-kan waxa waaye 10% waa halka MyForex Fund uu ka yahay 12% FTMO ay ka tahay 10%. minimum trading days-kooda waxay ka siman yihiin iyo drawdown-kan labadaanba waxay ka siman yihiin maxaan ku dhahay FTMO labadan rule FTMO ay ka siman yihiin ruleka saddexaad ruleka u dambeeyo oo ahaa minimum maxaan ku dhahay 5% daily loss 5% daily loss-kooda waxay laba qayb waaye qaybna waxaa la dhahaa rule choice positive days waa 50% positive days waa qaybta labaadna waxaa waaye 5% daily loss-kii caadiga ah aan naqaanay qaybta marka tan waa tii aan naqaanay tan kale waxaa waaye waxaa la qiimeynayaa maalmihii aad trade gareysay markii la qiimeeyo maalmihii aad trade gareysay haddii 20 beri noqdaan tusaale ahaan 20-ka beri waxaa loo qaybinayaa 10 beri haddaa positive ahayd maxaan ku dhahay daily loss-kaas kuma dhaceysid laakiin 10-ka beri haddii minus iyo wax uu kugu jiray waa ku dhaceysaa marka anaga sharcigan inta badan ina dadka ku dhiirigelinayn inay isticmaalaan waayo waa wax nagu cusub baan arki jirin laakiin kana naqaanaa oo qaabkii MyForex Fund aan u maamuleynay oo riskigeena aan yareyneynay ayaan asna u maamuleynaa qaybta labaad waa sidii oo kale sida kambaniyada kale oo kaleeto sidii leverage-kii haystaa 60 beri haystaa waa qaybta stage 2 ayaga ay leeyihiin waa verification halka FTMO verification ay dhihi jireen MyForex Fund ay dhihi jireen phase 2 profit target-ka laga rabo waxaa waaye 4%. maxaan ku dhahay drawdown limit-kan waxaa waaye 10%. minimum trading days-kooda waa 10 beri waa must inaad trade gareysid waa sharci ka mid sharciyada profit share-kooda waxaa waaye 85%. 100% markaa sameysid 15 ayagaa iska leh 85 adaa iska leh kanna waa kii hadda aan soo sharxinay akoonkan marka wuxuu joogaa $38 oo lacag aad u yar akoonna aad ku heli kartid xataa waxaa ku sameyn kartaa in macnaha aad isku tijaabisid oo aad wax real camal waaye aad ku baratid sida challenge-ga loo gudbo sida macnaha maxaan ku dhahay adiga kalsooni u sameyn lahayd trade plan-kaaga saa ugu saxan lahayd waxaasoo dhan aad ku sameyn kartaa waa $38 keliya lacag badan maaha waa akoonka 5 kuna wixii sharaxaada waan soo marnay akoomada iyo lacagahooda ma haddana sheegi doonaa akoonkan labaad intii hadda aan soo sheegin oo kale waa sharciyada qiimihiis waxaa waaye isna $54 akoon dhan oo 10 kuna $54 waxaa moodaa MyForex Fund xataa in laga sii raqiisan yahay akoonka saddexaad waa 25 kun asna waa $101 $101 wixii sharciya dhan waan soo sharaxnay akoonada lacagahooda iyo qiimahooda haddana sheegaynaa akoonka maxaan ku dhahaa afaraad waa $50,179 akoon dhan oo 50 kun ah ayaa $179 laga siinayaa halka FTMO $179 $180 laga siin jiray akoon 10 kun keliya marka kambaniga uu cusub yahay that's why uu raqiis ku yahay Soomaalida hadana waxay dhahayaan waxa ka jira malaha kambaniga waa kambani fake kambani saan ah kambani aan la hubin uu cusub yahay wax kastoo cusubna waa markay soo baxayaan raqiis ay ku soo baxaan FTMO waaga cusbeed sidaas oo kale raqiis ay yahay akoonkan hadda aan fiirinayno waa 100 kun waana $301 halka akoomada 100 kun aha MyForex Fund oo ka ah 500 FTMO oo ka ah 650 akoonka 200 kun waxa waaye waa $500 halka FTMO uu ka yahay $1,200 MyForex Fund uu ka yahay $800
marka hadduu ilaa yiraahdo aniga ka waxaan ku dhahay engineer Yasir ahaan waxaan tijaabin doonaa akoonkan 200 ka insha Allah soon aan qaadan doonaa waana tijaabin doonaa company-gan sida wax lacag loogala baxo wax walbo xogtiisa insha Allah asna waa soo gaarsiin doonaa hadda waa kan waa hordhac wixii xog dhameystiran insha Allah ana idin keeni doono kuwan waa instantiga macnaha waxaan kusii soconaa shuruucdooda waxa ugu muhiimsan markasta company markaa fiirinayso waa shuruucda haddaa fahantid oo iska ilaalisid wax walba easy ay ku noqonayaan trading house-ka macnaha waqtiyada lagu ogol yahay inaad trade gareysid ama saacadaha waqti gooni ah lagu moodiidayo ma fahantid waqti walbo habeen iyo maalin waa trade gareyn kartaa lagu dhahay trade-yada waa hayn kartaa overnight habeenkii waa hayn kartaa over the weekend sidoo kale waa hayn kartaa isbuuca waa ku xiri kartaa tan kale haddaan u tagno trading period-ka stage 1 waxaa lagu ogol yahay 30 beri with minimum requirement trading days waa 10 beri trading days kaas iska ilaaliya waa shuruuc kamid ah shuruucda waana lagu dhacaa dad qaar ma fahansano stage 2 waa saan soo sharaxnay you can complete over 20 beri ku dhameyn kartaa ku dhahay macnaha 20 beri haddaa stage 1 na 10 beri ku dhameysid stage 2 na 10 beri ku dhameysid 20 beri kadib waxaa noqon kartaa live account ayaa u gudbi kartaa trading product waxyaabaha aad ku trade gareyn kartid waay all forex pairs cryptocurrency stock indices gold silver macnaha wax ka maqan ma jiro wax walbo oo aad ku trade gareyso ama aad taqaano oo ku trade gareyn kartaa waa lagu ogol yahay waxaa jiro waxa la dhaho group trading waa copy trading iyo waxaas inaad maxaan ku dhahay dhowr accounts ku xirtid group trading kan marna waa la ogol yahay marna lama ogolo maxaan ku dhahay first offensive oo kaleeto phase 2 lama ogolo waxaan maleynaa markii inay ogol yihiin markii uu real yahay oo kaliya haddii aad u isticmaasho akoonka waxay dhaheen waana xireynaa akoonka haddii aad ku isticmaashid group trading ama EI waxaan oo akoomada lagu xirto prohibited strategy-dan ee mamnuucina waxaa waaye waxay ku leeyihin macnaha waxaan la ogoleen inaad laba position isku furtid maxay ka wadaan position koowaad oo ku furan oo drawdown kugu hayo ama khasaare kugu wado inaa macnaha isla lacagtaas mar kale taa position labaad aad ka furtid haddana macnaha dhinacii u gasho kaleeta u gashid waxaa jiro istaraatiijiyado markuu sameynayaan dadka qaar trade ay galayaan trade-kaas oo khasaare ku hayo ayaa sell u galay haddana wuxuu furayaa isla trade-kii oo buy ah markasta noocaas haddaa aragtid inaad u trade gareysid ama istaraatiijiyada isticmaalaysa ee noocaas tahay ma ku anfacayso maxaan ku dhahay company-gan mana ogolo waxaan filayaa inaad fahanteen can I request refund waxaa la sameeyaa markii aad challenge gudubtid phase 1 iyo phase 2 marka macnaha refund waxaa la sameeyaa markaa gudubtid phase 1 iyo phase 2 profitkaaga koobaad markaa sameysid bisha koobaad lacagta la bixis ayaa wax lagu soo raacinaa phase 1kii waxaa sameysay iyo phase 2kii iyo maxaan ku dhahay commission ay bixiyaan maxaan ku dhahay sida my forex fund FTMO na commission bixiyaan refund-iga iyo faa'iidada lagu soo celinaa marka company-ga wuxuu ku yiri marka ay noqotid Trade Central Fund Manager waa qof account live haysto markaa noqotid oo first month lacagta la baxdid kadib ayaa wax lagu soo raacinayaa faa'iidada iyo maxaan ku dhahay refund-iga profit target and drawdown limit macnaha waxaa lagu dhahay phase 1 waxaa laga rabaa 8% phase 2 na 10% 4% aan ka wadaa stage 2 marka aad dhaaftid waxaa lagu dhahay this means the equity of trading account must be not at any moment during both strategy 10% waa inuu maxaa lagu dhahay uu ka hoos marin equity-gaaga oo macnaha waa adoo rulka inaad ku dhicin waayo marka haddaaba gudubtid rulka hoose ugu dhacdo waaba gudubtay Soomaa
profit target and drawdown asaasi ka wadaan. Commission explained. Okay, commission explained kana waxaa waaye markii macnaha maxaan ku dhahay trade agreement trade markaa geshid faa'iidaha ku wada ama khasaaraha ku wada commission trade kas laga rabo lot kasta ku geshid marka wuxuu ku kala sharaxayaa markii forex aad tahay trade ka gesho forex yahay in lotkii meeqa lagu saarayaa $3 bar metal haduu yahay $7 crypto 0.05% waxaan filayaa inaad kuwan fahanteen oo waa commissionkii meesha oo maxaan ku dhahay swapka agtiisa ku yaalay commissionkaas oo ku sharaxayaan cashirkan. Okay, tan waxaa waaye account type and platform. Rose Bread account waxaa waaye macnaha leverage-ka ay ogol yihiin waa 1 to 200 horaan usoo sheekeynay. Kan labaad waxaa waaye marka kambaniyaash kale waxay ugu duwan yahay kambaniga waxay isticmaalaan MT5 update waaye hadduu cusub yahay marka MT4 laakiin haddii aad codsatid oo dhaadidniyo MT4 aan u baahanahay MT5 aniga ma isticmaalo waa codsanaysaa laakiin hore kama helaysid waa inaad codsatid kadib ay kaa aqbalaan markaa kadib aad helaysaa hadda akoonka maanta aan qaadnay waa MT5 kaan tartiib usoo dejinay asaan loogu trade gareynaa hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah. Dad waxaa jiro trade copy waxa la isticmaalo EI way ogol yihiin laakiin waa inaad la socodsiisaa kambaniga u sheegtaa inaa EI isticmaalaysid. waa sharcigii kan waxaa waaye hadayto aan soo sheegaynay daily losski iyo maxaan ku dhahaa positive dayski waxay dhaheen macnaha daily losska markii akoonka aad qaadatidba automatic daily lossku ku xiran yahay laakiin positive dayska macnaha kuma xirna automatic ma noqonayo haddaad rabtid laakiin positive days inaad ku xisaabtantid waa inaad ogeysiisaa ayaga oo aad ka codsataa inay kaaga dhigaan marka aad intaasoo dhan xogtii wixii dhan soo fahnay haddii gmailka iyo wixii aad soo diyaarsatay get started aad leedahay get started markaad dhaadid okay akoonkii wuxuu dhex geeyay baa akoonkii maxaan ku dhahaye furnaa markaa rabtid inaad isdiiwaan gelisid qaybta challenge-ga dooranaysaa akoonka aad rabtid oo markaas awooddaada ay tahay oo awoodid inaad gelisid ayaa ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid waxaad dooranaysaa saddexdan qayb waxaa waaye qaybta koowaad waxaa waaye kaarkii maxaan ku dhahaa credit kaarkii debitkii master card haddaa haystid visa card haddaa haystid qaybta labaadna waxaa waaye paypal gmailkaaga haddaa paypal leedahay qaybta saddexaadna waxaa waaye crypto USDT iyo wixii oo dhan maxaan ku dhahaa Binance wixii dhan ka gadan kartaa marka qaybtan koowaad qofka hadduu wuxuu isticmaalaya ku xiran tahay qaybta koowaad tig saaranaysaa kadib waxaa leedahay confirm payment hoosna waxaa ka dhiganaysaa lacagta inuu isoo furo oo diidan yahay akoonkan hadda aan ku dhex jiraa wixii dhiman waa intii iska caadiga ahayd aad taqaanin magacaaga iyo waxaa xogtaada aad gelisid kaarkaaga nambarkiisa wixii dhan kaliya waxaa iska ilaalisaa kaarka markaa gelinaysid kaarka in lacag go-aan ay ku jirto waxaa tusaale ahaan $10 oo kaleeta la dheereysiiyaa wixii ay kaa jartaan wixii kale uu ku soo laabanaya marka waxaan filayaa inaa insha Allah fahanteen kadib wuxuu ku geyn doonaa maxaan ku dhahay akoonka gudihiisii akoonka gudihiis markuu ku geeyo kadib halkaas kala soconaysaa waxa xogtaada dhan overview portfolio oo ajlisti portfolio-gan waxaa waaye qaybtii maxaan ku dhahay dashboard-ka wixii dhan aad ku ogaan lahayd qaybtii aad ku ogaan lahayd wax walbo sida macnaha akoonka xaaladiisa waxa meesha kala socon lahayd waa objectives-kii wixii dhan meesha ku jireen waa qaybtan portfolio waxaan filayaa inaad dhammaan fahanteen oo aragtaan wixii dhan meesha ku jireen waaye portfolio noocani
akoonkan waa akoon 25 kuna oo cusub yahay minimum trading dayskii maxi losskii maxaan ku dhahay positive trading days 55 maxi losski profit lacagta lagaa rabay kuwan kale waa kuwii aan soo sharaxaynay marka waxaan filayaa inaad fahanteen wixii insha Allah idinku adkaadana oo soo weydiin kartaan groupkeena telegramka linkiga saarna igala soo xiriiri doontaan dhammaantiin waa mahadsantihiin linkiga isticmaala insha Allah waan caawin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qaabka withdrawga iyo waxaas oo dhan insha Allah waan gaari doonaa intaas hadda idinku talagalay inaan idin soo gudbiyo codkayga yara xabiibsanahay wali hargabkii ay ahaayeen marka iga raalli ahaada dhammaantiin waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.